النبي عليه الصلاة والسلام وحيري إلهي سبحانه وتعالى الضون مدي سكمدة أيو وحو كلا دورسيه لبا الرماد إن الدنيا أو كواره مفاتيح الذين الله سيو آخرنا جنة أو كتنبيه إيوه إن هدب اللود الدجيه جنة حقيقة يا إلهي سبحانه وتعالى أكتيسة وحيال أدون كاسو دورتي إن جنة اللود الدجيه يا إلهي أكتيسة وحيال بدورتي الدنيا ذاك دورتي أبو بكر رضي الله عنه ومن بركوستي سفده أيا أوي مركو هذا الكلام مغلي مركاسو وحيري نفديك بآبائنا وأبنائنا يا رسول الله أصحاب تقاركود سيدة لي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وحان سيربو يري شيخا محول أوينا يا نبي عليه الصلاة والسلام نمبو كشيكي أدوام هذا إلهي كمذا أقول لك الدور رسيي آخر إيه أدونك وآخر الدورتي لكن وحنو قاني أبو بكر إنه أهمتك نوغو أقوم بدن حق علمك نبينا عليه الصلاة والسلام نوغو شعل نوغو أقوم بدن نبي عليه الصلاة والسلام مركو أركي أبو بكر أويني وحويري أبو بكر وها أويني لا تبكي يا أبا بكر أبو بكر وها أويني محايا لوي ديبيس النبي عليه الصلاة والسلام مرقد أبو بكر رضي الله عنه وحويني مركان النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر وها أويني إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر قفك يواب البضن حوله سي صاحبتي نمدي سي لسعود كيسا وأبو بكر بويري ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا هديها خليل يعني متصاحب آذو أهدو أما أن آذو أجعله قلبك جعيلك سوء دحقلي أكد قال لها قفان الله سبحانه وتعالى أبو بكر بو أهان لها بوير بني آدم كهدا خليل كل عنه لكن walaaltinimada islaamka iyo kalgacalkeeda iyo jacaylkeeda ayaa naga dhaxaysa albaaba ayaa u furnaa marka masjidka dadku ay ka soo galaan wuxuu yiri dhammaan albaabada masjidka hal la xiro meelaha ay raggu albaabada ay sameysteen waxaan ka ahayn albaabka Abi Bakr dhammaan albaabada kale hal la xiro nabiga kaleey salaatu wasalaam ودadaas uu xanuunsanaa nabigu kaleey salaatu wasalaam ayaamahaas waa la kaxayn jiray qoysaskiisana waa lagu wareejin jiray galabba meesha uu yahay baa la geyn jiray nabiga kaleey salaatu wasalaam sida ay leedahay Aisha radiyallahu anha fi sahih al-Bukhari nabiga kaleey salaatu wasalaam wuxuu oran jiray ayna ana gadan berrito xagee baan ahay marka wuxuu aad u shinsanayay u jeclaa guriga Aisha way dareemeen xaasaskiisu ridwaanullaahi calayhim markaasay waxay yiraahdeen yaa rasuulallah meesha aad doonto ayaad joogaysaa kuguma kalifayno waana kaa cafinay markaasuu yidhi ma ku raalli noqoteen haabay yiraahdeen waayahay guriga Aisha igeeya marka waxaa soo kaxeeyey marka Abbaas iyo wiilo dhalay nabiga kaleey salaam isagoo lugaha dhulka ku jiidaya ayaa waxa la geeyay guriga Aisha radiyallahu anha ilaa uu ka geeriyoodana gurigeeda ayuu joogay ayaamihii u dambeysay ama asbuucii u dambeeyay maalintii ku xigtay nabigu kaleey salaatu wasalaam sida uu sheegay Abdullah ibn Abbas ayaa asxaabtu qaar taabiciintii qaar ay weydiiyeen markaasuu wuxuu yiri yawmul khamiis wama yawmul khamiis maalintii khamiista ahay maxaa idin ogeysiyay maalintii khamiista waxay ahay ثم بكى حتى بل دمعه الحصى
wuu ooyey ilaa oohintiisu ay qaruurxi dhulka olla ay qoysay. markaasaan ku yidhi buu yidhi ninkii taabiciga ahaa, yaa abalcabaas maa yowm اlkhamiis, maalinta khamiis maxay tahay? wuxuu yidhi ishtada birasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalama, nebiga calayhi الsalaatu wasalaam waxaa ku soo cuslaaday xanuunkiisii. faqaala wuxuu yidhi iituunii bikatifin, ii keena garab aan wax idinku qoro, yani warqad aan idin qoro. aktubu lakum kitaaban laa tadiluu bacdahu abada, warqad baan idin qorayaa, yani dardaaran aydinan baadiyoobihayn kadib. markaasay asxaabtii isku khilaafeen, qaar waxay yidhaahdeen warqaddii hala keeno ama hala keeno haraggii wax ku qori laha, qaarna waxay yidhaahdeen rasuulku alayh salatu salaam uu xanuunsan yahy, uu qandhaysan yahay. markaasuu wuxuu yidhi nebi agtiis layskuma khilaafo, iga kaca dhammaantiin. way ka kaceen. marka wuxuu leeyahy cabdullaahi bn cabaas, alraziyatu kula raziya, musiibo oo dhan musiibo hadday jirto waxa weeye arrinkii kala dhex galay nebiga calayhi الsalaatu wasalaam iyo inuu warqadaas dardaaranka ah u qoro ummadiisa. culimada qaar baa waxay leeyihiin wuxuu qori lahaa nebigu calayhi الsalaatu wasalaam dardaarankii masalan abubakar inuu ka dambeeyo oo kale khilaafada, si aanba la ysugu khilaafin oo aanay u iman dad ku baadiyooba. laakiin saan ognahay firqooyin badan baa ku baadiyoobay arrinkaa ummadda islaamka ka mid ahayd, oo ay ka mid tahay shiicada oo firqado badan u kala qaybsantay, oo intaasoo firqo u kala baxday ayaa ka mid a firqooyinka ku baadiyoobay oo yidhi abubakar iyo cumar waa laga lahaa khilaafada oo cali baa ka lahaa. waana arrin aan jirin, sida ahlu sunnuhu ay isku wada waafaqsan yihiin. nebiguna calayhi الsalaatu wasalaam intii aanu dhiman uu ishaaraadkeeda bixiyey, oo abubakar isagoo nool nebiga calayhi الsalaatu wasalaam ayaamihii u xanuunsanaa salaada uu yihi abubakar dadka ha tujiyo, muruu abaa bakrin falyusalli biالnaas. xataa markay ku celceliyeen oo yidhaahdeen abubakar waa nin oohin badan, oo hadduu meeshaad istaagnaan jirtay uu istaago naftiisa ma hanan karo, dadkuna wuxuu akrinayo ma fahmayaan, ayuu wuxuu yidhi waxaan idin leeyahay abubakar salaada dadka ha tujiyo, cid kalena muyan farin nebigu calayhi الsalaatu wasalaam. wuxuuna yidhi ya'ba allahu, iyo dadka mu'miniintaaba waxay diidayaan cid aan abubakar ahayn in la hormariyo. isla maalmahaas ayuu nebigu calayhi الsalaatu wasalaam markii ugu dambeysay mimbarka fuulay, inay tahay maalintii khamiista iyo inay tahay maalintii jimcaha waa la isku hayaa. sababtu waxay ahayd ninka la yidhaahdo saxaabiga la yidhahdo cabaas, nebiga adeerkiisa calayhi الsalaatu wasalaam, iyo abubakar radi allahu canhu ayaa waxay soo mareen niman ansaara oo murugeysan oo masaajidka meel kamida fadhiya. nebiguna calayhi الsalatu wasalaam guriga caaisha ku jiray. nimankii oynaya ayay soo agmareen oo murugeysan. waxay dhaheen maxaad la oyneysaan? waxay yidhaahdeen nimankii ansaar ahaa waxaan la oyneynaa nebiga calayhi الsalaatu wasalaam makaanadii aanu ku lahayn agtiisa iyo amarka yimi